كنقو صومالي كنقو نعايو حسيقا كنقو كبركيو نحلقا كنقو نعايو حسيقا سيدي ناس تيجي حمايل وحكومو تستينار كنقضى كبركي نبرو كنقضى كبركي النبرود كنقضى كبركي النبرود كنقضى كبركي النبرود labaad waxa waaye oo aniga fikriyan aan qabaan arkaya xaaladda iyo duruufaha hadda dalka ka jira waxay keenayaan in culaysku hadda uu kabitaalkii muqdisho ka taagan yahay horta qofkii aaminsan in xaaladan wada hadal iyo dood iyo lagu joojin karo aniga waxaan qabaa in qof kasta halkan caawa hadda guddi ka qabataan oo xamar u dirtaan waa idinku gacan baan ku siineen haddii la raadin karo oo nabad lagu raadin karo oo dadkii lala hadli karo aniga waan qabaa inay samayso laakiin doodda hadda taala waa dood Soomaalida dhex taala doodda Soomaalida dhex taala marka in anagu aan gacan ka geysan aniga waa qabaa laakiin waxaan kaloo arkaa in maanta xaaladda dalku uu jira inta qiimeeyno aan runtii ka fakaro sideen kale oo contribution u sameyn karnaa halka waxaan rabaa inaan ka iraahdo runtii waxa laga yaabaa siyaasiyiin ma raba inaan uga hadlo waxa laga yaabaa inaan isku wada raacsanayn Soomaaliland ma fiican tahay ma xun tahay ma gooyaysa ma joogaysa laakiin inay nabad tahay inay wax fiican tahay inaan isku raacno Puntland inay nabad tahay inaan isku raacno deegaanada kale Soomaaliyeed inaan ka shaqeyno inay nabadna helaan maamulana helaan aniga taasna waan qabaa fikir ahaan waxaa markaa yaraanaya waxaa imaanaya space marka space ka balaaranaya xataa haddaan siyaasad ahaan 100% kor iskaga raacsanayn maanta fursadaha meelaha nabadu ka jiraan waa ka wada faa'iideysanaa waa ogtiinay waa hadda maanta Hargeysa caruur badan loo diro oo Muqdisho ka tagto markii dhibaato ka dhacdo wax fiican waay waxaan u maleynayaa Soomaalidu sida loo fogeeyo siyaasadda uma fogey waa laga wada hadli doonaa wixii siyaasadda laakiin meesha lagu wada hadli lahaa horta aan helno أنا waxaan qabaa gobolada hadda maaragtay koonfureedna inay fursadaas maanta jirto oo dadku hadda isaga dhow yahay sida aad ogtihiin ba dadaalaha ka socda gobolada qaarkood waad ogtihiin oo gobolada dhexe laftigooda waxa ka socda dadaalo noocaas oo in maamulo lagu dhiso aniga aad baan u dhiirigelinayaa in jubooyinka kismo yaani muxuu ahaa Baydhabo Boqol gobolada dhexe kulli laga wada shaqeeyo in maamulo la helo waxaana qaban kara maantay dawladda nidaamka iyo sharciga laakiin xaaladii culayska ku sugan tahay maanta anaga uga haboon inaan arintaas wax ka qabano oo aan kuma filla oo kaliya hadalka waxaan wada kuma filla oo kaliya inaan isbitaalka caawino kuma filla oo kaliya inaan dugsiga caawino arintaas waxaan rabaa inaan sheeko yar idinkaga sheego aniga wargi markaan tagnay dalka Soomaaliya 99kii waxaan runtii rumaysnayn siyaasadda anagu inaan shaqo ku lahayn laakiin aan saxaafadda dhisno waa ku dadaalnay gacan badan baan nalsii shaqo fiican aan qabanay waad aragteen hadda waati laga hadlaayay saxaafadda Soomaaliya wax badan ka hirgalay kaliyan ma ahayn Soomaaliya jaamacada Muqdisho aan waxaan mar xasuustaa 42 warshadood in hal mar xamar laga furay oo ay ka furnaayeen oo anaga aan idhaw sameyn jirnay jaamacadaha qaar dad badan oo involved ku yihiin ilaa waxa la gaaray in dadkii ka soo baxay jaamacada ee macallimiin jaamacada noqdaan waxaas oo dhan hal waxa isku fuuqsaday haddaan nidaam jirin dawlad jirin kulli way baaba'ayaan maanta marka waxaan maraynaa in anagu rukuumad garan in la xiro saxaafadda anagii furay inaan ilaahno hal xiro sababtoo ah mar haddaan awoodin inaan protect gareyno dhalinyaradii aan hawsha u dhiibnay shalay kuwii shaqadan iyo dadaalkan sameeyay oo furana in badan oo kamid ah lagu dilay hadda sabab aan marka u niraahno si aan wax aan nidaam iyo maamul lahayn socon kara waxaan u maleynayaa yani sida adag inaan ku baranay yani hardware dawladda sida adag inaan ku baranay inaan u baahanahay dawladnimada oo haddaan shaqaysan lahay aniga hadda saxaafadii dib ugu noqon lahay oo maamulkeedu ku noqon lahaa dawladnimada inaan u baahanahay hadda ugu horeyso in haddii aan jaamacad iyo yani noloshaas la gal lahaa in maanta dawladnimo u baahanta in haddii isbitaal wada ogtiin rag badan oo dibadaha ka tagay gabdho badan oo dibadaha ka tagay ayaa waxay dhiseen state of the art maaragtay isbitaal ah business warshada kulligan halkaan ka soo noqoteen kulligan waa ka soo tagteen qaar badanna waxa waaye maanta xataa waxa la ii sheegay xawan markii meel la baro suqaanin iska wata bir waxay tahay uu soo aqoonin
waxaa keenaya markii wixii loogu adeegi lahaa waa wixii markii hore dawladnimadii Soomaaliya nooga dhacay marka walaalayaal waxaan aniga halkaas way marka meesha culeyskan saarayaan leeyahay waxaa muhiim ah marka inaan culeyskeena horta isugu wada geeyno inaan helno dawlad Soomaaliyeed oo noo shaqeyso oo shaqadii noo qabto oo ammaanka noo sugto oo adeegii noo sameeyso oo sharciga noo hagaagto halkaas marka waxaan ku hor shaqeysan karnaa haddaan ganacsato nahay haddaan nahay maaragtay aqoon-yahan haddaan nahay xataa runtii waad ogtihiin oo maanta hadday taa culimadu ka hadlaysay diintii laftigeeda waxa ka dhacay waa ogtiin maanta magaalada Muqdisho masaajid laguma tukado inaad ogtiin kala maqaan wuxuu noqday xarunta la isku dilo masaajid oo lagu ballamo marka diintii dib u dhaca ku dhacay ganacsiga dib u dhaca ku dhacay caafimaadkii services wax kasta dib u dhaca ku dhacay waxa ka wada dhaxeeya waxaas oo dhan waxa waa dawladda aan shaqeyno dawlad fiican inoo shaqeyso marka halkaas waxaan marba ku celinayaa inay arrinta muhiimadda meesha ay tahay inaan saaro intaas markaan inta uga soo tago waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan runtii aan ku soo gunaanado warkeyga mid waxa waa beesha caalamka mas'uuliyadda Soomaaliya ku leedahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta Soomaaliya kaliya ma hadda si negative ay caalamku gacan ugu leeyahay Soomaaliya hubka maanta xamar noo yaalo sophisticated ka oo wada electronic aanu ma sameysanayn banaanku nooga yimaada dad badan oo hadda wadan ka dhex jiro ka dhex shaqeynayaan haddaad weydiiso wiilashu uun baa korkooda iyo magacyadooda taqaana iyo malaha beelahooda fikirka ay wataan meel ka keenay ma taqaan marka beesha caalamku si negative waa noogu jirtaa waxaan annagana laga rabaa inaan si positive inay noo contribute garaysa ka shaqeyno arrintaas waxaan is leeyahay isu tag Soomaalidu inay isugu tagto waayo oo ay pressure saarto gaar ahaan dawladaha waaweyn ee Europeanka iyo Mareykanka oo la yiraahdo waxaan wadanka annaga iskale maadaama aan leenahana waxa laga yaabaa inaan yaa madax noo noqonayo ku khilaafsanaano waxa laga yaabaa yaa xafiis kastaga inaan isku kala duwanaano laakiin bal horta inaan dal helno oo dawlad helno oo nidaam helno inaan horta ka midowno aniga waan qabaa arrintaas pressure-na la saari karo haddana dareenka aan qabaa ay yahay inay diyaar u yihiin dawladda Mareykanka iyo dawlado badan oo aan arkay caalamku inay diyaar u yihiin inay arrimahaas dad kala xaajoodaan marka aadan ugu la talin lahaa dadka waliba organizers community-ga inta badan oo madaxda halkaan fadhida in effort la geliyo arrinta labaad oo arrinta ugu dambayso rabeen oo soo noqdo waa arrinta diaspora iyo qurbo joogga aniga waxaan rabaa galabta caawa halkaan markaan fadhiyay inaan qaato shaarka ah inaan xubin idinkeeda ka mid ah sida data laga sheekeynaa dadka Otto waxaan ahay yimid wadanka waqti sidan laga roonaa yimid isku dayay maaragtay inuu dalka ka shaqeeyo runtii aad ugu faraxsan imaatinkaan mid waxna ka bartay waxa wadanka aan kula noqono waxaan dibadda ka baranay ay ahayd aysan ahayn wax hadda aan runtii waxa ugu badan oo dibadda laga bartaana waa fikirka iyo aragtida iyo shaqada qasam maahay biro waaweyn aan ka qaadno biraha meel walba yaalaan hadda kaliya laakiin aqalga yaa la isku ayaa la rabaa marka wadamadan haddana xataa iskool dhig waxbaad ka baranaysaa runtii marka laga hadlo aniga waxay la tahay aragtida aan ka leeyahay diasporadu waana dadku waana sii xoogeysteen waana sii bateen waqtigeeda aan hadda wadamadan ka shaqeyn jirnay yani Saciid Faahay markuu Minnesota naga soo aaday waa yaabanay waxa la meesha wuxuu ka doonay laakiin waxaanu soo horseeday marka waa uga mahadcelinayaa inuu maaragtay dadka waqti hore dadkii ka soo tagay oo ahaa horta dadkii shaqada ka qabtay oo dadaalada sameeyay oo iskama yimaadaan wixii ka shaqeeyay waa qaba in mar walba loo mahad celiyo sababtoo ah iyadoo qof walba noloshiisa ay tahay inuu ka shaqeeyo ayaa dadii ku dareen mid labaad oo ah inay community-ga u shaqeeyaan waxaan aad u rumaysanahay Soomaaliya sida hadda aan beesha caalamka uga hadlayay diasporadu waa la mid diasporada ama dadka qurbo joogga la yiraahdo Soomaaliya dhibaatadooduna waa gaaraysaa wanaagooduna waa gaarayaan walaashay gabadha halkaan hortay ka hadashay ayaa ka hadashay caruurtii hadda adinkeedna qaar ogeyn waad maqlaysan sheekooyinka maalmahan socday hadda annaga ma aqoon bas qarxinta iyo waxaas xoogaa anagu xabadda tooska ah baa nala sahlaneed laakiin dagaal aan aqoon xataa nagu soo kordhiseen xoogaa yar oo aad u cilmiyeysan horta kaas in adinku nagala dagaalantaan rabnaa oo gacan ka geysataan in waxyaalahaas aysan runtii haddaan wanaag u geyn karin bal horta inaan xumaatadii ka yareyno dadkii xagga arrintaasna waxay ka iman kartaa halkan laftigeeda sida aad isugu xirantiin marka koowaad horta halkan haddaad ku guuleystaan ee Soomaaliya wax ka tari kartaan hadda halkan ku fashilantaan Soomaaliya wax kama tari kartaan sidaan qabaan qofka guuleystay uma wax tari kara marka qasamaha 100% in meel la soo wada raaco dhalinyaradu iyaga wadadooda qaadanay doona laakiin leadership ay u baahan hoggaan u baahan yihiin marka in la ururo in la mideysnaado in laga wada shaqeeyo xaaladda halkan duruufta lagu